الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. dhawaaqa aadaanka ee dhagahooda saameeyey qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Minneapolis ayaa waxaa laga oogay markii ugu horeysay dusha sare ee masaajidka Daarul Hijra ee ku yaala magaalada Minneapolis, taasoo ay soo dhaweeyeen dadka islaamka ee ku nool gobolka Minnesota. Sheekh Cabdisalaan Aadan oo ka mid ah mas'uuliyiinta masaajidka Daarul Hijra ayaa waxaan weydiiyey arrintan cidda ka shaqaysay iyo waliba wadiiqada ay u mareen. arrintanna waxaa keentay iskaashi dhex maray hay'adda CARE Council on American Islamic Relations la dhaho oo xiriirka muslimiinta iyo Mareykanka ka shaqaysa xuquuqda muslimiintana daafacda iyo maamulka masaajidka Daarul Hijra ayaa duqa magaalada Minneapolis la kulmay oo u sheegay dadkii markii guryihii jooga la dhahay waayeel badan iyo qoysas badan oo masaajidka ku cibaadaysan jiray ayaa runtii dhibaataysan. Marka arrintan aadaanka inay maqlaan oo maadaama salaada jamaacadii jumcadii ayna hadda oogi karin arrintii markiiba uu soo dhaweeyey. Jalaal Xuseen waxa tahay agaasimaha hay'adda CARE oo inta badan muslimiinta u dooda waxaa ka dhacay caaway meeshan taariikh markii ugu horeysay oo gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis lagu ogaa aadinka gaar ahaan masaajidka Daarul Hijra. Bal dareenkaaga ka war. Wallahi runtii dareenkaygu waxa weeyaan sidii ugu qurux badneed aan ku aqaabili lahayn bishii Ramadaan inagoo ku jirna runtii xayraan iyo ma aragtay xilligan adag. runtii waa dareen aad iyo aad maaragtay inaan dareemayo inaan waddankan uu noqdo waddankaygii oo kale. يعني waxyaabaha aad iyo aad ugu duwan wadamada waxa weeye marka aad wadan joogtid oo eedaan maqleen insha Allah waxaan rajaynaynaa fursadan inay sii balaarato oo masaajidada Mareykanku ay yeeshaan awood ay ku yeelaan in maaragtay eedaanka. Sheikh Ahmed Maxamed Jamaan waa muadinkii dadka islaamka ah ee degan magaalada Minneapolis ku soo dhaweeyay bisha barakaysan ee Ramadaanka. Alla ayaa weyn waxaana weydiiyay aadaankan iyo kuwii hore waxay ugu kala duwan yihiin. wuxuu ugu duwan yahay kan aadaanka hore hoosa lagu aadami jiray dadka ma maqli jirin laakiin maanta ilaahay waxaan ku mahdaynaa alxamdulillaah waa nicmo ilaahay oo dadka ay maqlaan oo macna dareenkooda inay qaataan in ilaahay subxaanahu wa ta'aala takbiirta inuu ilaahay inuu weyn yahay marka. Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaan BBC wuxuu ka mid yahay murashaxiinta golaha deegaanka magaalada Minneapolis wuxuuna cabirayaa dareenkiisa. waxaa sharaf noo ah inaan ka qayb galno xaflad taariikhiga ah waa markii ugu horeysay ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota la ogolaado adin dadku ay banaanka ka maqlaan oo runtii arintaasina waxay sharaf u tahay dhamaanba dadka muslimka iyo dadka xaafad degan iyadoo dhawaanahan dalalka reer galbeedka ay ku soo badanayeen dadka aan jeclayn dadka soo galootiga ah iyo islaamka ayaan waxaan weydiiyay wax saameynaya inay ku yeelan doonto imaamka masaajidka Daarul Hijra Imaam Shariif Maxamed. magaalada Minneapolis iyo gobolka Minnesota guud ahaan waa dad aad ugu fiican wada noolaanshaha iyo isqadarinta haddii ay soo baxdo oo ognahayna inay jiri karto ay jirtana dad soo galootiga nacab dadka madow nacab dad islaamka iyo muslimiinta nacab haday jirto waxaan doonaynaa inaan uga falcelino qaabka ugu haboon oo macnaheeduna uu yahay iyaguna xuquuqdooda inay helaan anaguna taanada aan helo kadibna la wada noolaado qaabkaasan sameeynaa hadii Ilaahay yiraahdo. kor u qaadida aadaanka magaalada Minneapolis ayaa waxaa ogolaaday duqa magaalada Minneapolis mudane Cheka Fry iyadoo ay soo dhaweeyeen jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota. Cabdi Xakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka.